ismada gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn oo shir degdeg ku yeeshay deegaanka Buura Wadal ee gobolka Sool ayaa si adag waxay uga soo horjeesteen duulaanka qaawan ee maamulka Soomaaliland ku soo qaaday deegaanka Tuqaraaq oo ka tirsan gobolka Sool. sidoo kale ismada iyo gudida qabanqaabada waxay si wada jir u shaaciyeen xilliga uu qabsoomay shirweynaha u ballansan yihiin beelaha gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. waxa uu ganaalka ka hadlay Suldaan Sheekh Ismaan Cali, Garaad Cabdisalaan Xasan Maxamed, Garaad Cabdisaaq, Garaad Soofa Durraan, Garaad Salmaan Buraale Aadan iyo qaar ka mid ah golaha ismada. Soomaali baanu midnimada Soomaaliya aanu ka midnahay, jamhuuriyadda Soomaaliya aanu ka midnahay, dawladda federaalka aanu ka midnahay. inina walaalada yaatihiin haddii aad islaantiin oo alihiin la yaad ummadii nabi maxamed tihiin gaalayni ku sheegi mayne naga guuro intaad naga guurtaan oo nooga baxdaan gobolka yaga iyo deegaanka aanu leenahay. waxaanu ku baaqaynaa inay degdeg uga kacaan. haddayan ka kicin waxay la kulmi doonaan waxayan malaysanaynin, wax laga tureeyey, wax looga tureeyey, wax la diidanaa, wax soomaalinimada iyo islaamnimada ku xumaa oo ah dagaal. waa dagaalamaynaa haddii aan deegaamadayada laga kicin, haddaan taladayada naloo dayn, haddii waxa anagu mudannahay aan naloo dayn, cidna sheegan kartaa ma jirto. waxaanu ka midaysannahay caalamka u sheegaynaa oo isaabka u sheegaynaa oo kuwa lagu soo duulay u sheegaynaa oo ragga naga garabka gaashaanka u sheegaynaa aanu maanta ka midaysannahay cadowga nagu soo duulay nafya martoon inaana kala hadhin rag iyo dumar ciroolo iyo caamo dagaal haloo diyaargaroobo hala shahiido cadow aan iska kiciyo yaa nafta la jaraysan naftu mar bay go-aysa laba goorgoy mayso. baan haddaanu dhaqannahay taageersannahay waa fulinaynaa. waxaan rabnaa in go-aamadaas dhammaantood la taageero gudo iyo dibadba lala shaqeeyo, lagu kor shaqeeyo go-aamada meesha ka soo baxay. annaguna taageero buuxda baan go-aamada siinaynaa. arrintan laga hadla ee qabsiga waa arrin meel ka dhaca wey, waa arrin dadka sharaf darro ku ah. qof kasta oo wax garanaya oo beeshaa u dhashay sida wax u socdaan iyo dembiyada dhacaya way arkaan. haddaan odayaasha nahay waa hadalay, hadal hadduu wax tarayo waa idinla hadalay. hawsha maanta socota ee gudida qabanqaabada ay leedahay iyo howlwadka ay ku qabteen baanu ku aysannahay, diyaarna waanu ugu. wuxuu yidhaahdaa arab sallaankaa tafteen dhowr qolo oo soo dhacaa koray gaalkii sarqaamadii rabbiga saatirgaa sheegtay sankuu baa kalaaca u gasho laga sarcay waxba sii wadi maayeen. waxaan leeyahay dalka iyaga inta aynu kala nooga qabno ee saddexdan ama labadan maalmooda ay idiin sokaysa maamulkiina lamida gaatumo dadka dhulbahanta ee codka iyagaa maqlayo diyaargarooba. hadal kale ma jiro, diyaargarooba. Somaliland ama SNM waxay ka caban jirtay waa nala gumaaday, waa nala xasuuqay, waa nala laayay. xabaalo ayay soo qufaan hadeer wixii ay iyagu ka cabanayeen bay hadeer ku wadaan beesha ama gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn. dadkuna ma aha in kelmadaha Faysal Cali Waraabe ee uu leeyahay buntu qaaradiisa biyo lagu cabaaya nina lama khasbi karo. dimuqraadi baanu nahay bay dhahan, waxaanu nahay muqadas weeye. wax iyagu cid walba waa muqadas wixii cid walba ujeedadeeda iyo go'aankeedu waa u cadyihiin. nina lama khasbi karo, buntu qaaradiina waxba laguma helo. waxaa shirku isku raacay in la qabto shirweyne beesha dhulbahante xilliga guga. shirkaas oo furmi doono ugu dambeyn 15 bisha afraad ama abril sida loo yaqaan. waxaa shirku isku raacay golaha dhaqanka iyo guddiga qabanqaabadu isku raaceen ergooyinka shirkaa ka soo qeyb gelaya inay noqdaan 213. shirku wuxuu ka dhacayaa gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan dhulka ay degto beeshan, iyadoo lagu xisaabtamayo xilli roobaadka waqtigaas mudnaantana la siin doono hadba meesha loo doorto. go-aanka ay soo saareen guddiga qabanqaabada, go-aankaas ay soo saareen baanu la waafaqnay. waxaan ugu baaqayaa dadka beesha dhulbahante
iyo dadka la dega waxaan leenahay walaalaha soo gardarooday ha la abhiyo dhiigooda xaqdarray aan lagu daadin saasaanu leenahay hadday diidaan sharaftiinna dalkiinna iyo cirdigiinna inaad difaacataan ilaahay subxaanahu wa tacaala baa idin baneeyey waana laydinkula xisaabtamayaa waxaanu leenahay midooba